xubintiina ciyaaraha ee maantana waxaynu ku eegi doonaa kooxda Chelsea ayaa tababaranimadii iyo xilkaasi ka eriday isla markaasna shaqadii kooxda ee tababarnimo uu ku hayay Pochettino ka eriday. ilaa habeen hore waxaa la leeyahay waxa uu socday shirar kala duwan maamulka iyo tababaraha kooxda Chelsea. waa la isku afkaran waayay waxyaalo badan baa la isku diiday qaabka suuqa loo geliyo ciyaaryahanada la soo qaadanayo sida kooxda la doonayo in loo soo dalacsiyo maadaama sanadkan ay aad u liidatay oo aanay Chelsea dadweyneed kooxda weyn ee Premier League iyo Yurub labadaba ka muuqan jirtay. intii runtii ninkii hore ruushka ha laga eriyay kooxda dhulkay taabatay oo waxa weeye Chelsea meel allaalay meel socoto ma jirto. lacag badan baa la geliyay waliba nimankan imika mulkiilayaasha noqday ayaa xoog u lacagayay laakiin taasi waliba Chelsea waxba uma soo kordhin halkay joogeenna waxba koromay ka qaadin. sanadka Europe League ciyaari doonaan kaalinta lixaad ee horyaalka Premier League England ayay ku dhameysteen. laakiin marka dadka ciyaaraha faaqaya ka hadlayaan tababarahan Pochettino iyo intuu kooxda hayay waxay leeyihiin laguma canaanan karo magaranaysaa in kooxda halka fadhido mar dambe uu qabtay waliba shanta ciyaareed u dambeysay waxaad moodaysaa in magaranaysaa uu la qabsaday oo fadhiisay qaab ciyaareedka kooxda isla markaasina xilli ciyaareedka cusub isagu wax u bilaaban yihiin oo kulamadii saaxiibtinimada iyo kuwa soo ciyaaray oo xilli ciyaareedka cusub saa ku bilaabmayo. laakiin ninka shaqada waa la geeriyay nimankii way isfahmi waayeen kooxda lahaa isaguna xalay waa macsalaamiyay ciyaaryahanada iyo maamulka kooxda labadaba. marka kooxdii Chelsea imika tababare cusub ayay doonaysaa tababarayaasha ay doonaysana imika waxaa kamid ah tababaraha hore ee Chelsea imikana Bayern Munich ka tagay xilli ciyaareedkan Tuchel. sidoo kale waxay doonayaan Felix ninkii la oran jiray isna tababare hore Bayern Munich oo labadoodu waa Jarmal. sidoo kale waxaa laga xirinayaa tababaraha kooxda Brentford oo la yiraahdo Thomas Frank ayaa isaguna la xiriiriyay kooxda Chelsea uu shaqada qaban doono. wararka qaar ayaa sheegaya in xataa Faisal Company loo soo bandhigay inkastoo warkaas aan war rasmi ahayn laakiin isagu wuxuu sugayaa in kooxdan Bayern Munich oo wada hadal u socdo in xaaladoodu horta meel ay fadhiisato. marka Chelsea xaaladoodu iska qasan tahay qaar badan oo ciyaaryahanada kamid ah ayaa iyaguna ka soo horjeeda ama ka xumaaday eriga magaranaysa lagu sameeyay tababarihii kooxda. ciyaaryahanada aadka loo hadlayay aadka ugu xumaaday waxaa kamid ah Michael Jackson, Cucurella, maxaan ku leeyahay Palmer, Casido adigu ciyaaryahano badan oo kamid ah kooxda Chelsea ciyaaryahaneeda ayaa aad u diidan oo wax way ka xumaaday shaqo joojinta iyo eriga lagu sameeyay tababarihii kooxdaasi. waxa leeyahay tababarahan aad wuxuu ugu fiicnaa xagga magaranaysaa qolka libiska ee kooxda hadii jiro waxa mid haysta wuxuu ahaa mid aan istiidinin mid magaranaysaa had iyo jeer dadku si fiican loo wada joogo ahaa. marka ninkaas shaqada ala kulli xal waa laga yariyay nimankaasna tababaro cusub ayay raadinayaan. tababaraha kooxda Tottenham ayaa sheegay inay weeraryahan khatar ah oo wax badan u keeno kooxda Tottenham ay doonayaan. sidoo kale wuxuu yiri suuqa sanadkan waanu geli doonaa wax badan baan ka sameyn doonaa waxaanu bilaabi doonaa sanadka dambe sidii ay kooxdan Tottenham noqon lahayd kooxaha ka muuqda magaranaysaa Europe iyo Premier League labadaba. tababare Pep Guardiola ayaa isaguna waxa uu ku guuleystay markii shanaad tababaraha ugu wanaagsan horyaalka Premier League sidoo sheegnay ninkan marka horeba wax weeye waa tababare aad u fiican oo khibrad iyo waayo aragnimo leh. imika sanadka afraad xiriir ayuu horyaalka Premier League England kooxda Man City u qaaday. marka sanadkan tababaraha ugu fiican ee horyaalka Premier League England isaga ayaa loo xilsaaray. wararka kale ciyaaraha ku saabsan hadii aan eegno kooxda Arsenal ayaa la sheegaya inay heshiiska u kordhin doonto tababare Mikel Arteta. isaga laftiisu marka la eego wax weeye kooxda si fiican buu dhisay da'yar badan buu soo saartay inkastoo la leeyahay isaga laftiisu lacag badan buu kooxda geliyo haddana wax faa'iido uma keenin. laakiin haddana marka dhinaca laga eego waa dadaalay kooxda labadii sano waliba u dambeysay xoog bay u dhisano. Man City horyaalka waa ku ciriiriyeen sanadkan wax yar oo aan naf lahayn
ayaa laga qaaday oo de waxa weeye ciriiri badan ayay geliyeen.